السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودوادا صاحبيال waxaad ku sodwaatan Learn English with Hassan. Magacaygu waa Hassan Cabdullaahi Xuseen. Waxaan maanta idin soo diyaariyay topic aad u xiiso badan oo ku saabsan cigarette smokers, sigaar cabayaasha. Waa topic about cigarette smokers, mowduuc ku saabsan sigaar cabayaasha. So runtii sigaarka waa khatar qofka caafimaadkiisa iyo dhaqaalihiisa intaba aad u baabi'iya. marka mowduucaas aad ku xisaab badan ayaa maanta soo diyaariyay. waxaan idin ka codsanayaa saaxiibayaal inaad kanaalka subscribe gareysaan, muuqaalkana aad like gareysaan insha Allah. waayahay topic about cigarette smokers, mowduuc ku saabsan sigaar cabayaasha. cigarette smokers, sigaar cabayaashu waxa ay leeyihiin a lot of problems, dhibaatooyin fara badan for their health, caafimaadkooda, and finance iyo dhaqaalaha. First, ugu horeyn, they spend waxa ay qarash gareeyaan their money, lacagtooda ayay waxay ku qarash gareeyaan every day, maalin waliba, to buy inay ku iibsadaan a cigarette, sigaarka. Because maxaa yeelay they can't stay, ma joogi karaan one day, hal maalin, without smoking, cabitaan la'aan. sigaar cabidda ayaa waxaa la yidhahdaa wax walba qiiq afka ka keenaya waxaa la yidhahdaa smoking. marka sigaarkaas inay cabaan la'aantiis hal maalin ma joogi karaan. It's a habit, waa caado, easy to start, si fudud ayaa lagu bilaabaa, but laakiin it's hard, way adag tahay to stop, in la joojiyo. sigaarku is the worst habit, waa caadada ugu xun of the human body, ee jirka bini'aadamka. It destroys, waxa ay burburisaa two things, laba shay, that's very important, kuwaasoo aad muhiim ugu ah for the people, dadka. The first one, midka ugu horeeya, it will destroy, waxay burburin doontaa your health, caafimaadkaaga, for all your body, guud ahaan jirkaaga. cigarette smokers, sigaar cabayaashu, mostly badanaa have cancer ayaa qabaan ama ku dhaca, and very poor healthy, waana caafimaad daradooduna aad buu u liitaa. poor waxa waaye dhanka caafimaadka sabool ayay ka yihiin oo aad buu u liitaa caafimaadkoodu. The second one, midka labaadna, is waxa uu yahay the biggest problem, dhibka ugu weyn of cigarette smokers ee sigaar cabayaashu, are financial problems, waa dhibaatooyin dhaqaale. Because maxaa yeelay buying, iibsashada one box of cigarette, hal box oo sigaar ah, is almost, waa ku dhawaad $10, waa $10 per box, halkii box. Some people, dadka qaarkii, may smoke, waxay sigaarka cabi karaan more than in ka badan others kuwa kale, and they have to spend, waana inay qarash gareeyaan more money, lacag fara badan waa inay qarash gareeyaan. If you calculate, haddii aad xisaabiso how much money, inta lacag oo they spend ay ku qarash gareeyaan, how much money, imise lacag ah oo ayay they spend ku qarash gareeyaan every month, bil waliba, to buy, si ugu iibsadaan a cigarette, sigaarka, you will shock, what shock ayaa kugu dhici doon, yacni waad yaabaysaa. cigarette smokers, sigaar cabayaashu, are not living, kuma noola a clean environment, deegaan nadiif ah, and you can't stay with them, lamana joogi kartid. Because maxaa yeelay, because of, sababtuna waxay tahay their offensive, ku xadgudubkooda, for everything, wax waliba, around them, oo iyaga ku hareeraysan. sababta aan loola joogi karin waxay tahay wax waliba oo iyaga ka agdhow waa ay ku xadgudbayaan, yacni faraha ayay la galayaan, waxaan qofbaa iska leh iyo waxyaabahaas ma garanayaan, shay walba ay arkaan iyagu waa ay ku xadgudbayaan. So halahan u dambaysa waa waano. I suggest, waxaan u soo jeedinayaa to everybody, cid waliba, to stop, in ay joojiso smoking, sigaar cabidda. Because maxaa yeelay I don't see, ma arko, any benefit, wax faa'iidaha kama arko, to smoke, in la cabo cigarette, sigaarka in la cabo wax faa'iidaha kama arko. sidaa daraaddeed waxaan soo jeedinayaa cid waliba in ay joojiso sigaar cabidda. sababtuna waxay tahay wax faa'iido ah kama arko sigaarka, except marka laga reebo destroying, burburinta your health, caafimaadkaaga,
and your finance iyo dhaqaalahaaga. Hal mar ayaan dul marayaa isagoo English ayaan hal mar akhrinayaa insha Allah. La socod wanaagsan. Topic about cigarette smokers. Cigarette smokers have a lot of problems for their health and finance. First, they spend their money every day to buy a cigarette because they can't stay one day without smoking. It's a habit easy to start, but it's hard to stop. Cigarette is the worst habit of the human body. It destroys two things that's very important for the people. The first one, it will destroy your health for all your body. Cigarette smokers mostly have cancer and very poor health. The second one is the biggest problem of cigarette smokers are financial problems. Because buying one box of cigarette is almost $10 per box. Some people may smoke more than others and they have to spend more money. If you calculate how much money they spend every month to buy a cigarette, you will shock. Cigarette smokers are not living a clean environment and you can't stay with them because of their offensive for everything around them. I suggested to everybody to stop smoking because I don't see any benefit to smoke cigarettes except destroying your health and your finance. The end. haddaba halka ayaan kusoo afmaraya saaxiibayaal waxaan kugula talinayaa walaal cashirkan in aad gacantaada intaad ku qorato aad xifdiso kadib maraayada intaad soo hor istaagto aad dusha ka akhrisid. waxaa halkaa ka dhalanaya in aad kalsooni badan aad ka qabtid luqadda marka barashadeedu aad bay wax aad ugu tiirsan tahay dhanka speaking-ka. haddii aad khalad samaysatid please khaladka ha ka cabsanin ku sii soco. waa in aad try garaysaa. You have to try. waa inaad mar waliba aad isku daydaa. cashirkan gacantaada ku qoro please. waa talo aan ku siinayo waay cashirka gacanta ku qoro. gacanta markii aad ku qorato haddii area kugu adag oo aadan ka siin ay jiraan gacanta ku qoro. dabcan area kugu adag inay ku jiraan u malayn maayo. موضوع aad u xiiso badan waaye. mawduucadan aad ku xiisaha badan markaad xifdiso kadib maraayada intaad soo hor istaagto aad dusha ka akhriso luqadda barashadeeda waad jeclaanaysaa. shay waliba oo aad jeclaatidna waad ka guulgaaraysaa. maxaa yeelay marba shayga naftu haddii jeceshahay kama caajisaysid oo maalin walba waad ku dadaalaysaa. halka ayaan kusoo afmeerayaa muuqaalka xiga inta laga gaarayo saaxiibayaal waxaan idinkaga tagaya sidaas iyo amaana Allah.